allaha u naxariistay 3 qof oo laba kamid ay haween yihiin ayaa waxay ku geeriyoodeen shil gaari oo ka dhacay duleedka galbeed ee magaalada Hargeysa sidaasina waxa telefishinka Honkebel u xaqiijiyay taliyaha ciidamada nabadgelyada wadooyinka ahna afayeenka ciidanka booliiska Somaliland Faysal Xiis waxa shil dhimasho iyo dhaawac iyo khasaare ka dhacay halka maxay ahayd buurta kala jaxantiisa hotelka Leer Royal hortiisa waxa isku jiray baabuur isku rogaa iyo baabuur fujisa oo lambarkiisu yahay 92324 Allahu naxariistay shilka waxa ku geeriyooday 3 qof baa ku geeriyooday 2 hablood iyo wiil baa ku geeriyooday Maxamed Mustafa Aydiid 26 jir ah marxuum Yurub Maxamed Aadan iyo marxuum Raxma Dayib Nuur ilaahay waxaan uga barayna naxariistan ha siiyo aniga ku hadlaaya magaca taliyaha ciidanka booliiska waxaan halkan tacsi tiiraaya looga direynaa eheladii iyo qaraabadii ay ka baxeen dadkaasi waxaan leenahay ilaahay sabir iimaad ka siiyo iyagana ilaahay waxaan uga bareynaa inuu jannada geeyo taliya Faysal Xiis ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay baarayaan sababta keentay shilkaasi shilka dhacay ciidanka booliisku si mugle u baarayaan baalisti baa la soo socota waxay ka soo baxaan dib ka soo sheegtaan gabagabadii taliyaha ciidamada nabadgelyada wadooyinka Somaliland waxa uu baaq u diray wadayaasha gaadiidka Somaliland waxaa leenahay nimanka baabuurta wada ee darwalinta ah malaha ummadooda u nixmayaane war waxa weeye baabuurta wadaan dad baa wasaaran nafta bini'aadamka waa in la ilaaliyaa 100 jeer buu taliyaha ciidanka booliisku ka hadlay 100 jeer bay booliisku ka hadleen wacyigelin badan bay sameeyeen waxaad moodaa in ninkii maqal waay maxkamadda la geenaya waliba gaar ahaan darwalinta war baabuurtan overtime-ka ku sameeyaan yaa dhaafisaan idinkoo xawli ku socda war waa sharci darro war waxa leenahay ku yar socda